waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa gaar ahaan Hotel Grand Had labada xisbi kulmiye iyo wadani kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee markii laga soo laabto doorashada kadib labadaas xisbi ku kulmaan kulankani ayaa waxa ka soo qayb galay hoggaanka labada xisbi iyadoo uu helinayo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdi Dheere dhinaca wadani waxa uu socday gudoomiyaha kumeel gaarka xisbigaasi Cabdiqaadir Jirde Xuseen Axmed Caydiid iyo mas'uuliyiin kale kulankaasi oo ay saxaafadu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday telefishinka Star wax ka weydiiyay mas'uuliyiinta labada xisbi waxaana uu hadlay labadaasi xisbi gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo sidoo kale mas'uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani Xuseen Axmed Caydiid ayuu sheegay in kulankaasi sii socon doono warbaahintana ay la wadaagi doonaan mas'uuliyiintan oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waa aragtaan maanta laba xisbi baan ku kulan kulmiye iyo wadani shiraan doorata isugu nimid saddex xisbi ayaa la isla soo qaatay in labada xisbi balay soo arkaan marka go'aanka doorata aan wada gaarnay saddexda xisbi xisbigii saddexaadna dee nala joogin nala ogola ayaan maanta isugu nimid wadahadallaan noo bilaabmay oo wada hadalnayna si saraaxiyana waa u wada hadalnay welina islamaanaan ma garanaysaa islamaanaan wax go'aana weli oo sidaas oo aanu ka warrabna islamaanu gaarin sabtidaanu isku soo noqonaynaa haddii alla idhaa haddana marka waa shirarkaan noo socday ee aynu geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii doorashooyinka ugu qabsoomi lahaayeen iyo waxaan ku dhahdaa arrimaha dee carqaladii ay taagan sidii looga wada hadli lahaa laga wada hadlayo weli qodobkii u horreeyay uun baan runtii ilaa imakaanu ku jiraa marka waxaan rajaynaya inaanu meel wanaagsan isla gaarno insha allahu marka ay dee wax noo dhammaadaan haddii alla idhaa waa idiin warrami doonaa daaw idiin sheegay xuseen waxaanu maanta halkan ku wada fadhiisannay labada xisbiga wadani iyo kulmiye waxaanu ka dhashay wada hadalka iyagaasu inaanu gooniisu aragno annaga iyo wadani saddexda xisbi annagoo wada fadhina waanu go'aankaa isla gaadhnay wada hadalkiina wuu noo socdaa si wanaagsan buu noogu bilaabmay marka aan wada hadalka iyagaa qodoba ka soo saarana saxaafadda waanu idinsiin doonaa intaasaanu markaanu dhammaysanno wada hadalka iyaga ayaanu idinsiin doonaa wixii ka soo baxay laakiin dariiq wanaagsan buu noogu jiraa waanu ku faraxsannay inaanu isu nimaadno wada hadalno intaasaan idin soo kulankani ayaa ah kulankii ugu horeeyay ee labada xisbi ee kulmiye iyo wadani ay wada yeeshaan tan iyo intuu talada dalka qabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana kulankaasi uu sii socon doonaa maalmaha soo socda balse shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ka dhur sugi doonaan waxa ka soo bixi doona wada hadaladaasi ay yeesheen xisbiyada kulmiye iyo wadani Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.